shirkadda Dahabshiil Group Samtel iyo bangiga Dahabshiil ayaa shirweynaha ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda ee lagu qabtay magaalada Kampala ku soo bandhigay adeegyada kala gedisan ee shirkadda Dahabshiil Group oo hayso bulshada Soomaaliyeed iyadoo shirkadda Dahabshiil Group ay ka mid ahayd maalgashiyadii ka qayb qaatay taabagelinta shirkaddan. Maamulaha bangiga caalamiga ah ee Dahabshiil Cismaan Xalane ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay shirkadda Dahabshiil Group Samtel iyo bangiga DBI ay ku soo bandhigeen shirkadda. waxa halkan aan taaganahay maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii Uganda Somali Business Summit oo shirkadda Dahabshiil Group ay si mugle uga soo qayb gashay. waxaan kaga soo qayb galnay groupka oo dhan sida bangiga telecommunicationka iyo internetka fiber optiga oo telecommunicationka hoos yimaado. muddadii aan joognay maalmihii aan ku sugnay halkan waxaan la kulanay bangiyo iyo telecommunication intaba aan isfaham maarta kala saxiixnay aan mustaqbalkan rajeynayno insha Allah taala. wadankan Uganda oo runtii ah wadan aad u wanaagsan xagga ganacsiga in aan ganacsi ka sameyn doono insha Allah taala. dhammaanna groupka oo aan kala harin waxay maanta halkan ku soo bandhigeen oo bootkan hadda gadaasheeda ah oo madaxweynayaashu ku soo boqdeen serviceka adeegyada iyo waxa dhan oo maartay shirkadu bixiso. waan u mahadcelinayaa dawladda Uganda fursadda ay maartay naga siisay in aan halkan ku soo bandhigno adeegyada. waxaan rajeynaynaa insha Allah taala partnership wanaagsan la yeelan doono ganacsatada Uganda iyo dawladda intaba. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. madashani dhaqaalaha oo ay ka soo qayb galeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Uganda wasiirka ka socda labada dal rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo ganacsatada labada wadan ayaa waxa ay isku weydaarsadeen fikradooda ku aadan sidii si wada jir ah looga faa'iideysan lahaa fursadaha ganacsi iyo kuwa maalgashi ee yaala labada dal. shirkani oo ay Dahabshiil Group taabagelintiisa kaalin weyn ku lahayd ayaa inta uu socday waxaa dooda ganacsi oo furay yeeshay ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah ee Soomaaliya iyo Uganda iyadoo oo sidoo kalena qaatay kulamo laba geedood ah oo shirkaduhu ku kala warqaateen kuna la fagureen fursadaha maalgashi ee labada dal Soomaaliya iyo Uganda. Awil Abdi Abdullahi Labaqeed, Jubaland TV.